channel ka waa ina xoogayna magacada ka dhigiya waa gaajiraysto halkaas aan marnaa xoogay ku xigeen wali ma la magacaabay halkaas xoogay ku xigeen ma waxa la magacaabay habeenka xogayaha guud iska daa waxaas xoogay ku xigeen ma bilaabay qoftaan ka dhigiya fortuna waxa laga yaabaa wiilkaas inuu wali adiga ku jecel yahay war ma ka hart sheekada war ma wajid waxay daba dhigan garan waay anna intaas aan leega falay alla fay marka waa caato lafta ka leexo gabadhigi laakiin war ragaysa markii daa madaxda taqaana kada kuma soo jeesanayo caas caalka casow ka leexo odaygu muu soo fiirin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ee hawada nagala socda halkaan naga daawanaysaan waa channelkeena la farax official saaxiibo qiimo badan ayaa garbahayga fadhiya mulkiilaha channelka oo dhinaca midiga fadhiya iyo walaashii Fartuun Caato oo iyaduna dhanka midig isaga ka sii fadhida soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee hore ugu xidhnaa channelka waanu uga mahadcelinaa sida wanaagsan ay ula socdaan muuqaaladan channelka soo galino saaxiibada cusub ee muuqaalkan daawan doona haddii Allah wadal raali ka noqdo fadlan haddii ay markii kuugu horeysay oo muuqaalkan daawato channelka subscribe saar muuqaalka la gare u share garaa asxaabtaada kale baraha bulshada saaxiibada kala tahay soo dhawaada mar kale anaga dhankayga waa habeen wanaagsan idinkana waqti kasto idin tahay oo wanaagsan ayaan idin leenahay marka ugu horreyn waxaan soo dhaweynayaa mulkiilaha waan ka dulboodiyaa amininkan uu iska leeyahay walaashii Fartuun baan soo dhaweynaya Fartuun soo dhawo waa dhawahay asxaabtana la faraxda salaama meel walba ay joogaan anaga kulay habeenino tahay habeen wanaagsan idinku wax walba idin tahay wanaagsan soo dhawaada muuqaalka anid share gareeya like share comment wax dhan anaga xastina intaas waxay noo tahay dhiirigelin hada comment inaga soo bixisid commentigaaga aduu rabo daliil ha ahaado adoo rabo dhiirigelin ha ahaado wax walba uu yahay commentigaaga anaga wuxuu noo yahay dhiirigelin marka waxaan leeyahay soo dhawaada asxaabta meel walba aad joogtiin waana kana anaga iyo hadana muuqaal kale oo cusub ay mulkiila soo dhawo waxa isxariis xariifinta dad waxay ku leeyihiin mas'uuliyiinta maxay balaay isaga dhigaan hada aniga ma hadlaysid adiga ilaa waxa milkiila lagu dhaamiyaa ninka abaa loo saa uu suuday waxaas la armay Fartuun soo fiirsa qosasho iska aams aan naftirkay waaya banaa waxaan isla kuleel ma ahayn channelka waa ina xoogayna magacada ka dhigiya waa gaajiraysto halkaas aan marnaa xoogay ku xigeen wali ma la magacaabay halkaas xoogay ku xigeen ma waxa la magacaabay habeenka xogayaha guud iska daa waxaas xoogay ku xigeen ma bilaabay qoftaan ka dhigiya ma soo baahdaa ayna qabanaysa warbeelka saa ku sugatii soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan dad qiimo badan dhinacyada ka jira waxaan rabnaa inaynu sheekooyin yar ka sheekeyno qisaskii qof walba noloshiisa iska daa ku ogaay meel baa u socotaa hadaayo baa wax ka taabanaysa wada hawshaada dhib male adigu khayr bay tagi doontaa saaxiibada uga hor dhicmayno walaashay maarta ku bilaabaya Fartuun Caato أنا وعلى يابنا زي جالان قرده قفت أسيدت بوحي كذا دعنيس Fartuun Caato على قفت أنا كذا دعنيس أنا وعاد سويدي وعاد السنة سوون جديد نيوم بقعد قار وحفينا لها جانج إنه سمين كرو لبدلو في راد واحد أركسنت قنا هبل يرى وكله وين هذا وقت جيران تلو بحي وقت نكوا وين هذا نكوا تنجرا على مركز إسماعيل يرو متر يا متر صعنا يا واحد متر سديد أنا أرك قفت عن مركز عاطل صعنا أنا هذا فيري واقع عاطل ده لبح مقع عن إرجسو مركز Fartuun Caato اللي ده أنت ما كوينا وأكبرنا ما كودا وقعد دبنا كلاس وكعيرنا مركز وايه wax laga yaabo Fartuunay ma عكس بقى عكس ومعنى ها يعني قفت هوابو سايد يبورنيد waxa ku sheegaya kuwa ma aragtay oo waa iska saaxiib badan tahay kuwa ma aragtay ka xishoonayo inay Fartuun buuro dhahaan Fartuun Caato bixi ما خالفي dhinaca kale ugu rogay qof ma aragtay ilkaha wallahi ana naqsdan la yaabanayo hebro khatar nin aan saaxibna noon shaqada tarwana ka shaqeey nin aan saaxibna baa wuxuu tagay magaalada Burco marka wariyo ahaa TV bulsh TV leeyahay imka satellite ku jira laakiin xilliga local buu ahaa Hargeysa ma laga daawan jiray baan ka wada shaqeyn jirnay dadna waxa dhacay koobka gobolada Soomaaliland wariyaasha loo diray si bulsho uga soo warrama ciyaaro halkay marayaan buu ahaa marka dhowr qof oo caawiyaala baa kula qornaa sax shaqada isagoo marka galabtaas xamaasad bay leedahay gobolka Hawd oo gobolka ugu xamaasad badan Soomaaliland marka badal ciyaarayo iyo gobolka Togdheer isagoo gobolka ugu khatarsan challenge ka dhaxeeya wada ciyaarayay sanadkii horena Hawd baa waxay soo reebtay Burco ciil bay soo qabaan ها تقدر مركا عيل بو قبي قبل كيسنا lagu qabanaya isaga marti gali ciyaara waa in dusha ka maraawa marka ilaahay wuxuu isku soo beegay Hawd iyo Togdheer
galabtii wuxuu yidhi uniyo shaqadiina qabsadaan tarbanka fadhiisanaya oday reer Burco kala ba kuwa fadhiya marka waa meeshii ugu weysay tarbanka halkan oo kale sii istaag anaga la xataa ari alla fay marka waa caato lafta ka leexo gabadhii laakiin hore geysa markii daa madaxda taqaana kada kuma soo jeesanayo caas ayalka caaso ka leexo odaygu muu soo fiirin tartiib buu durka tartiib nacaan ugu lahaa ilka casmiya marka ma ilka casmiya kalaay sideeda maqan inta hore maqan tahay markii ninkii mar dambe soo eegay mugti inta hore iska beeyay mugti mar dambe soo eegay ninkii eegay soo sabso odaygu daan ku isku disay karaay ku dhaabay wariga reer Burco eegay ninkii waa adigu galabtii isagoo yaaban suu qosliyay muddo ma daawan odaygu ma daawaday la fay yelkaas waa ka tagay waxa jirta xaafad la yiraahdo Sahara Qaylo ma ya Sahara Qaylo ma hodan Qaylo ana laakiin xaafadaas Saharaan ka fikir waa xaafada hodan Qaylo waa xaafad Burco kamid ah ninkii wuxuu tagay reer familkiisu degan صح booqasho u timaada magaalada joogayo inta uu liig socdo dhan halka joogayo gurigii buu tagay islaantii eedadii buu soo booqday familka hayeen meesha joogto ciyaalkeedii iyo xabaad meesha isbarbaraba aninka soo laabtay mid baa markaa soo raacay ay ilmaabtii yihiin eedadii dhasho dadku reer Burco صح abar bay soo socdeen ciyaal baa korin kasoo ari heelo waxa laga yaabaa inay xiin saaraan isxajiya وافري برعكو الله هاي ninka waa maxay markaas ana ciyaalka ciyaal xaafis marka xaafadaha habeenka hore maadaan waa inay waxa laga dhagaxna saaraan ku waamiyaas in qabtaan ma intee oo ayna dilaan oo mobilada iyo magarasa ama inoo haan jabaan xaafad xaga soo gashanaya ari qarrac magarasa kaas arin xin sar balaga waa saxi wixii saxi dig baan galay وعيدي أنا مودي ربط كمان يعني ما يعني يسن إنه قال استبتي يا حريفي وحين إنك أساسا شفكوا تاعي مكسان لنعودنا يجي من وقته بعدين يجي بقارتي ذي قلتي بيرو ما ندري مريان أساسا لو يجا كان دافع بيا كور كسر كاري من سوق قلتي بام كل شيء قوم بعد كل داعي سوق كور لما كان هذا العلا هذا إن لا حلان خطر اسكدق nin iska dhig oo xaafada maxaa haydeen iyo ka hadalka kaga horeyno ku shiraaniyo ninka horta wuxuu Burco ka soo baxay isagoo yaaban oo xataa kelmadihii Soomaaliga ahaa ee lagu hadli jiray garan waayay marka wax rabaan su'aashi baad ka khalkhalisaan fartuun wadiin la farxiyaan wadiin la fartuun wadiin la fartuunay soo dhaw waa dhaw waxa jira xilliga ciyaalnimada oo qofku uu 15 jir soo gaaro oo ciyaalnimadina ka soo baxay wasiiba gabdhaha waxa jira gabdho markay ciyaal xaafadka yihiin kibirka u dhashay isqaadqaadka xilliga adigoo 15 jir soo gaaraysay meeqa wiil baad naqas ku dhigtay wax badan magaalo noo faafaa wiilkii kugu yaab ka badnaa doonay inuu ku shukaansado oo kula hadlo ma xasuustaa horta aniga wiilal la koray feer iyo laad le kasi jirmaana erigi jacayl ma ka seenin iyo shukaansiba ma ka seenin ha wiila marka habeen wuxuu u dhahay anoo meel cajiin ka doonay oo raafartuunay oo ku jeclaa Allah baay dadka biyo u galay ila noqoto caay ya caay ila noqoto ma dhaawacaan ba loo qaaday kulli la gabadh feer iyo laad barato waa ma hawl yare wareem maxaa ka wadaan hay fartuun waa ku jeclaa adaa ku rabaa cajiinka xaafadana waa khasaare hay la yaab ereygaas waa la yaab horta waa ku jeclaay adaa ku rabaa wiil ilasha u imaade waxa dhahay hebel saasoo dhahay maxaa ka wadaa dhahay ma caay oo igu qosli ma ku caynine wuxuu dhahay adoo ku rabaa shukaansi waayo dhahay shukaansi maqaanidu naadana ku shukaansidiyo heblaay daraad oo iimaanis markino heblaay amal waano adeer baadila mawliga ahane baakaatiye aad iska dhigno oo ha rebadi waa aydi gudu sanmaya oo tigid mis ay ma harin ha wiilkaas magaciisa habeenkan waa aslaya Allah allamay hadda soo raadi doona qraaci doona ilaa jisda uu jooga wiilkaas ma gursanintay bas
ilaa hadda ma guursanay halka uga hara saaxiib raallo halka uga khayr laa ku sii saaxiib saaxiib raallo saaxiib abo fartuun wax laga yaabaa wiilkaas inuu weli adiga ku jeceliyay war ma ka harta sheekada war ma wajid waxay daba dhigan garan waay anna intaasaan layga falay maxay wataa inaa lilah wallaahi ilaa hadda waa la yaabaa adaan ku weydiinaya saaxiib waxaan rabaa waxaa jirta xilliga dhallinyarnimada leeyahay gabdhaha xaafadda أنا ورد شيء كان ذيك الشيء كان يا دبعتي واحد لكن واحد بعتها أنا كوربنو حلقي دلني رنما هذا قبته أما قبدي كوجور ريسي يا تسكو حافظ هايدين يا تسكو استمع حستا waxa lagu sheekaysan jiray telefoonka line-ka loo dhaho line Allah ya line-ka khatare line-ka waa laga soo wactamaayo gabar la sheegay maqan iyo dad adiga ehelka soo wactama marka line-ka dibadaha loogu xidhan jiray waa laga ilaaliyaa waqtiyada maartay haddoo qabsad ciyo dhigaya ilaa telefoon gacanna ma jiro moogtahay waqtiyada marka oo hadal ku aadan yahay kale waa la yaqaan jawiga cidii mashquulinaysa waa laga ilaaliyaa صح marka waxaan sameeyaa fiilada maaragtay fiilada line-ka meesha guri ka soo galeysay box ka maaragtay box kala moogto inta box kala ha waa xifdisanahay marka gurigan soo galaya box kan kala furaya marka okay labada boolan ka furaya fiilada ay soo baxaysa banaankan tagay fiiladan jiidanaya qolkeena aan fiiladii gelinaya box aan soo gatay aan ku xiraaya fiiladii weligay tuugaga lamida telefonkiina meesha yaalla soo maaha waxaan sameynaa marka boxkaas haddana telefon yar noo yaalla oo line kala ah oo aniga soo habaystay halkaas marka madaxaas mad gashanaysaa taha la xararada u reedo haysta halkaas aan qaadaya telefonka meesha yaalla soo maaha maanta waa la sugayaa maanta waa la sugayaa subaxii marka marmar baa marka subaxii waxaan sameyn jiray anaa kala fura xagan ka tuuraa dhag baa xiraa maalmihii dambe ilaawo oo qolkaaga iska dhex yaala qolkayga iska dhex yaala adiga isbuuc baan haysta bahalki waa isku ilaaway 5 saac been maan qabsada waagaan ugu dhigaa guriga lagu soo garaaca salaad subax dukada oo diyaar baan bahay ugu jira sala soo inta isbuuc baa guux iyo gariir laga waayay telefoon guriga yaala dadkii dibadda salo markii dambe la kor loo qaaday xaa ii dhiibata wax ku xiran male waa madaxii kaliya meesha iyo gacankii iyo xarigii gacankii waa kala la aadiyeed waxa dhacay marka waqtiyada way kala darneed waxa dhacay gaari ma aragtay baan inaan saaxiibanahay aad baan wax jeclaa wadasta gaadiidka marka gaari baan inaan saaxiibanahay baan ka qaatay ninkii gaariga waa ii dhiibay waa habeenkii igu horreysay gaari kaxeeyo waa faraxsanahay qofkan waa qofkii waxa waaye qaas uu yahay habeenkaas shukaansigaas waa kala xiran yahay ninka dhalinyarada waxaan ku yiri gaariga shidaal noogu soo shubay gaariga in shidaalka noogu soo shubay ha lacagta wasi ha lacagta bixis lacagta u dhiibay xariif ninkan dhalinyarada wuxuu sameeyay gaariga 5 litir ku soo shubay lacagta inta kale wuu habaystay aniga 5 iyo 10 iyo 20 iyo wuxuu qaado gaari deema aqaan asoo socdaan qaana marka lagu keeno waa soconay ha laakiin waa wata gaarigii ay sii gaari qam oo tagaydid hoon AC shan litir lagu soo shubay baxday badan soo saray baad manaka meeshii aan soconay halkeenii halkii aan gaarigii igana halkaas aan laba dhagax fariisanay sidii la yaqaan halkan ku shakaysan gaarigii waa soo baxnay laamigaan cagta soo saarnay waa xilliga kala dhamaadka gaarigii sidaa la qost gaarigii socda oo geer ku jira oo automatic hadda shaashadii baa ay ifaysa ilaa warka qabo ever wax ku xayman ka jar dabka gaarigi biige star hada la hoo wala baa gaari islaamid waa la ninkii baa raadi waca infaanti wixii baa adiga howl baa ka dhacday meesha aan laga soo sheekeyn karin oo dheer la xalin ninkii wuxuu yiri gaariga cilad baa ku dhacday waa dambaan ogaa doonaa cilad baa u geystay lacag baa laga rabaa عذاب حميبة هذا حميبة وهاجيني هذا وقت لمن لا $30 رأيك بحد قالي واجس وهاجا خطرة لا بقول ضرب عمل ودي أنت لا بقول ضرب ودي مش صار بدنا صومرتين صار بدنا صومرتين أوكي قريب كم إذا جابك يسوق جاركي جابك يسوق جاري هذا ما هتسيهين فرصة بانكو هلا عاوة فرتون إيه وهرالي وانا سن إيه نكلي هذا يحيى أنا وري عنها تايد دي بانو دقن دونا إن شاء الله مرة كلا أيام ربع channel كنا لا فرح يتيم كنا نقول شيء كيو
fursad bay tahay lisgaa muhiimadeedii saxaafadda dib ugu noqday lisgaa qorshaha kuma jiro ma intaan mid baan ku tuuray Haye. mid baan ku tuuray sheeko hore aan noogu turtay ilkaas noogu turtay ilkaas subxaanaka yaa cadiid marka saxaabada aad bay u mahadsan yihiin guulaysta meel walbaad joogtaan waa aniga oo Yuusuf Xaybra iyo walaalka Yaxye Nuur Muumin iyo sidoo kale walaashay Fartuun Caato Fartuun Buuro magac kale u bixin doonaa Caato waa laga soo fikirayaa maadaama qofta jilaafarta ka xiran waa horta taas ay dikiilaan aad iyo aad filim dhawaan soo socday qayb ka noqonaysa insha Allah waliba channelka walaashay Fartuun Caato saaxiibada waxaan leenahay hala booqdo tiimka hoos ay soo qoraya channelka insha Allah hala booqdo saaxiibiya channelka hala booqdo hala kala kiciyo waa maasantiin guulaysta intaanu ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan kaga tageynaa anagoo isku duuban salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh